weeraro isdaba jooga ayay wajahaysaa dowladnimada Somaliland tan iyo markii ay aqoonsatay dowladda Israa'iil. Duulamadaasi oo ah kuwa jihooyin kala duwan ka imanaya ayaa loo baahan yahay u diyaarsanaantooda iyo sidii la isaga difaaci lahaa. waxaana weerar tijaabo ah lagu sameeyay ardayada ay dowladdu ku leedahay Google-ka ee loo yaqaano website-ka, iyadoo lala wareegay website-kii arrimaha dibadda qaar kalena la khalkhalgeliyay. kooxo burcad ah ayaana u dhabagalay sidii ay u fulin lahaayeen weeraro dhinaca digital-ka ah, kuwaasi oo lagu baadigoobayo xogta iyo dukumentiyada muhiimka ah ee dowladaha ay isdhaafsadaan Somaliland, qorshayaasha socda iyo siraha waaweyn ee ay Somaliland leedahay, kuwaasi oo ku aadan siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda. taasi oo si weyn u cabsi gelisay wadamo dhowr ah oo ay Somaliland daris yihiin, sidoo kalena qaaradaha ka talowday sanadihii ugu dambeeyay. wasaaradda amuuraha dibadda ee Somaliland ayaa fariin qoraal ah oo ay soo dirtay muddo kadib markii weerarku uu ku dhacay website-kii ay ku lahayd barta internet-ka, waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi la soo gabagabeeyay oo gebi ahaanba ay degalkeedii haatan wasaaraddu si rasmi ah gacanta ugu hayso, dhawaana la soo hawlgelinayo, balse haatan si ku meel gaar ah loo joojiyay. waxaana ay sheegtay farsamo inay ku socoto oo hadda gacan uga sarreysa aanay jirin oo kooxihii burcadda dhinaca internet-ka ahaa laga guuleystay. digniino isdaba joog oo hore ayaa laga sameeyay in weeraradu aanay ahayn kuwa si toos ah loogu soo qaado Somaliland, balse ay jihooyin badan difaac kaga jirto ama se ka gasho, oo ay ka mid tahay dhinaca internet-ka iyo adeegyada digital-ka, kuwaasi oo muhiimad weyn leh marka loo eego xogaha laga heli karo iyo siraha waaweyn ee la isku dhaafsanayo emailada, website-yada iyo rugaha kale ee digital-ka. inkastoo kooxaha Yemen ka dagaalama loo filayay in ay jabsadeen website-ka dowladda, website-yo kalena ay khalkhalgeliyeen oo degalka internet-ka ku yaala, balse la waradiyo warbaahinta xogaal heshay ayaa sheegaya in ay isku shabahday kooxda tani, balse aanay ahayn oo loo filan karo falkaasi inay fuliyeen dhinaca Soomaaliya iyo Djibouti oo si weyn u raadinayay xogaha diblomaasiyadeed iyo xeeladaha ay Somaliland u isticmaalayso siyaasadda arrimaha dibadda iyo wadamada ay xiriirka leeyihiin, heshiisyada dhex maray iyo wadahadallada ay isdhaafsadeen. taasi oo ay si weyn farta wadnaha uga hayaan dalal kale inay aqoonsanayaan Somaliland, waana baraha xiriirka ee ay marayaan wararka waaweyn iyo warcelinta ay wadamada Somaliland isdhaafsanayaan. kanina waa weerarada waaweyn ee ay Somaliland wajahayso oo loo baahan yahay inay difaac ka gasho, dhistona dad aqoon-yahano ah oo dhinaca digital-ka ku horeeya. ciidamadan ku hubaysan aqoonta ayaa waxa ay weerari karaan website-yada iyo rugaha dowladaha cadowga, sidoo kalena waxa ay ilaalin karaan oo ammaankooda kor u qaadayaan rugaha lagu kaydiyo xogta ee ay leedahay Jamhuuriyadda Somaliland.